maalnimadii sabtida ahayd ee dhammaadka toddobaadkii hore 1 Agasti waqooyiga dalka Itoobiya waxaa ka qarxay dagaal culus oo markaasi u dhaxeeya TPLF iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Itoobiya. dagaalkaas oo qaatay ku dhawaad 23 saacadood waxaa halkaas ka dhacay khasaare kala gedisan oo dhinacyada soo kala gaadhay. dagaalkan oo markaasi weerarkiisa iska lahaayeen ciidanka militariga ee Itoobiya isla markaana ay ku weerareen duqaymo dhanka cirka ahaa iyo sidoo kale madaafiic culus oo ay ku garaaceen galbeedka deegaankaasi Tigray gaar ahaan deegaanada Shareero oo saldhigyo ay ku lahaayeen ciidamada markaasi TDF ee Tigray. haddaba muuqaalkan waxa aynu ku eegi doonaa daawadaya dagaalkaasi qarxay maalnimadii sabtida ahayd ee 1 bishan Agasti xagee ayuu u dambeeyay xageese ay wax marayaan. dagaalku waa uu ballaadhay waxaana markani khasaaraha ugu weyn uu soo gaadhay dawladda federaalka ee Itoobiya. ciidamadii abid ugu badnaa ayaa iskugu dhiibay ciidamada TDF ee ku sugan galbeedka deegaanka Tigrayga. waxaana dhowr iyo 10 saacadood ee aynu ka soo gudubnay la baahiyay muuqaalo la yaab leh oo lagu sheegay inay yihiin ciidamada difaaca qaranka Itoobiya oo markaasi faramaran isla markaana isku dhiibaya ciidanka Tigray ee markaasi la yiraahdo TDF. dhammaan ciidamadii qaranka ee markaasi dhanka buuraleyda ah ee galbeedka deegaanka Tigrayga ku sugnaa iyagii ayaa markaasi u kala baxsanaya isu dhiibida TPLF oo ahaa kuwii markaasi loo diray in ay soo abjaraan. haddaba dawladda uu hogaamiyo Abiy Ahmed Cali markani cadaadiskii ugu xoogganaa ay wajahaysaa waxaana markani cadaadiska ugu weyn ay ka wajahayaan dhanka Suudaan iyo sidoo kale Eritrea. maalmo ka hor wafdi ballaaran oo ka socday dhanka dawladda Eritrea ayaa waxa ay soo gaadheen gudaha dawlad deegaanka Tigrayga waxa ayna kulan la qaateen saraakiil ka tirsan ciidanka Tigray iyo sidoo kale mas'uuliyiin jabhadda TPLF qayb ka ahaa. kulankaas oo faahfaahin dheeraad ah aysan ka soo bixin ayaa waxa laga wada hadlay in markaasi la dardargeliyo sidii dagaalada loo sii wadi lahaa isla markaana xukunka markaasi loo dhaafin lahaa ninka la yiraahdo Abiy Ahmed Cali. ciidanka qaranka ee Itoobiya ayaa noqday kuwa markaasi xataa warbaahinada caalamiga ay wax ka qorayaan. Tigray waxa ay sheegeen in ka badan 9,063 askari in dagaalkii sabtidii ka qarxay galbeedka deegaanka Tigrayga ay ku qabteen oo maxaabiis ahaan ay u hayaan. halka sidoo kale markani la sheegay 10,000 oo kale oo ciidanka militariga ka tirsan oo cagacadaan ah in iyagu markaasi ay go'aansadeen in ay isku dhiibaan oo ay ka mid noqdaan xogaga TPLF. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa maanta safar degdeg ah ku tagay magaalada Bahardar ee caasimadda dawlad deegaanka Amxaarada. safarkan ayaa markaasi la fahamsan yahay in uu daaran yahay inuu u kurgalo xaaladda dhabta ee ka dambaysa in ciidanka qaranku sidaas ay u jabaan sidoo kalena ay isku dhiibayaan TPLF. mise waxa uu doonayaa in Amxaarada uu mideeyo oo markaasi heshiis hoose uu la galo xogaga Faano ee gudaha deegaankaasi Amxaarada ka dagaalamaya. wararkii ugu dambeeyay iyo xaalka Itoobiya oo markani aad loogu saadaalinayo in dhabbihii burburka ay qaadayso ayaan muuqaalkan ku faahfaahin doonaa. saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalka noo la gareeya si share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiin si goor walba wararka iyo macluumaadka halkan ay ku baahneen soo gaaraan. aad ayaa u mahadsantihiin.